Ku cibri qaadashadu waa mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee qofka bini'aadamka ku hago jidka saxda ee nolosha. Waa awoodda qofka u leeyahay in uu ka faa'iidaysto wixii horay u dhacay, ha noqdaan qaladaad uu isagu galay, waayo-aragnimo uu soo maray, ama qisooyin xanuun leh oo dad kale ku dhacay. Ku cibri qaadashadu casharada nolosha iyo faa'iidada ay u leedahay qofka caqliga leh. Ku cibri qaadashada qisaska dadka in lagu cibri qaato dadkii ka horreeyay. Haddaba in lagu cibri qaato khaladaadkii horey kaaga dhacay, qisooyinka lagaaga sheekeeyey, ama aad adigu akhrisatay, waayihii aad soo martay, maxay noloshaada uga dhigan tahay? Qofka aan ku cibri qaadan wixii hore wuxuu halis ugu jiraa in uu ku celiyo ama dib ugu laabto khaladaadkii hore, halka qofka cibri qaata uu si miyir leh uga tallaabsado mustaqbalka. Haddaba waxaan ku eegi doonaa mowduucan aan maanta isdul taagi doono ee la xiriira ku cibri qaadashada ama in cashar laga barto waayo-aragnimada qisooyinka xanuunka leh ee dadka kale ku dhacay, ama adigu qudhaada waayahaada waxyaabihii ku soo maray. Sidoo kale, macnaha ku cibri qaadashada micnaheedu ma aha keliya in la xasuusto wixii dhacay, balse waa in la fahmo sababta ay wax walba u dhaceen, in la garto casharka ku duugan, in sidoo kale la bedelo fikirka iyo ficilka mustaqbalka. Cibri qaadashadu waa iftiin hagaya maskaxda, kana ilaaliya qofka in uu ku dhaco godad horay uu u galay. Haddaba waayo-aragnimada qofka iyo casharada ay sido arrintan. Qof walba waxa uu leeyahay waayo u gaar ah, guulooyin, guuldarrooyin, farxad iyo murugo. Mararka qaar dhibaatooyinka aan la kulanno waa macallimiin aamusan oo wax badan ina bara. Qofka caqliga leh ma necba dhibaatada ee waa uu ka faa'iidaystaa. Uma arko guuldarro dhammaad ee waxa uu arkaa inay tahay bilow. Kuma hakado murugada ee waa uu ka koraa. Waayo-aragnimadu waa hanti, balse waa waxa qiimaha leh ee aan ka faa'iidaysan karno. Noloshu kuma koobno khibradaada oo keliya, qisooyinka dadka kale, kuwa guulaystay iyo kuwa fashilmay labaduba. Waa casharo furan. Marka aad maqasho qiso qof burbur ku dhacay, isweydii maxaa sababay, maxaa lagaga hortegi lahaa, anigu maxaan ka baran karaa? Qofka ku cibri qaata dadka kale wuxuu badbaadiyaa waqti, tamar iyo xanuun badan. Haddaba mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee cibrada waa abuurka Alle, cirka, dhulka, badaha, xayawaanka iyo nafta bini'aadamka lafteeda. Dhammaantood waa calaamado muujinaya weynida iyo awoodda Alle, xikmadiisa qotada dheer iyo awooddiisa aan xadidnayn. Inaad ka fikirto abuurkaasi waxay kugu hogaaminaysaa tawfiiq, khushuuc iyo faham qoto dheer oo ku saabsan nolosha iyo ujeedada jiritaanka. Haddaba innaga cilmi la'aan inama haysato ee baraarug la'aan ayaa jirta. Maanta macluumaadka iyo aqoontu ma yara. Khaladaadka jira waa in aan la milicsan wixii dhacay, in sidoo kale aan la falanqeyn casharada nolosha, in aan la adeegsan aqoonta jirta. Haddii qofka uu ku baraarugsanaado, noloshu lafteedu waxay noqotaa dugsi waxbarasho. Haddaba mahmaah Soomaaliyeed ayaa odhanaysa caano daatay dabadood la qabtaa. Micnaha mahmaahdu waa in wixii dhacay aan la bedeli karin, balse wixii soo haray la badbaadin karo. Qofka uusan ku noolaan shalayto, balse uu ku noolaado xal. Tani waa falsafad nololeed oo ku dhisan rajo iyo ficil. Guuldarro kasta iyo dhibaato kasta waxay sidaa fariin. Waxaa laga yaabaa inay ku baraan samir, qorshayn ka wanaagsan tii hore, iyo inaad ku tiirsanaato Eebbe Subxaanahu wa Tacaala. Qofka wax ka barta dhibaatooyinka waxa uu noqdaa qof adkaysi leh oo bislaaday. Haddaba ku cibri qaadashadu waa furaha horumarka shakhsiga iyo kan bulshada qofka. In aad ku cibri qaadato naftaada, in sidoo kale aad ku cibri qaadato dadka kale, in aad ku cibri qaadato abuurka Eebbe, iyo in dhacdooyinka dunida aad wax badan ku ogaato. Waxay noqonaysaa ama aad noqon kartaa qof iftiin leh, aragti dheer leh, sidoo kalena kana badbaado khaladaad badan. Noloshu waa cashar soconaya. Qofka guulaystana waa kan dhageysta, fahma, kuna dhaqma wixii uu bartay. Inaad sidoo kale isxukunto oo aad isla xisaabtanto
waa mid ka mid ah casharada ugu qaalisan ee laga dhaxlo wixii nolosha kugu soo maray. Qofka aan naftiisa xukumin, dadka kale ayaa xukuma. Qofka aan naftiisa la xisaabtamin, nolosha ayaa si adag ula xisaabtantaa. Isxukunka nafta waa inaad si daacad ah u eegto ficiladaada, go'aamadaada iyo doorashooyinkaaga adigoon marmarsiyo raadinin ama cid kale eedeen. Isla xisaabtanku ma ahan in aad naftaada ku cadaabiso edeb iyo shalayto joogta, balse waa inaad si miyir leh aad u tiraahdo halkan qalad ayaan galay, halkan sidan ayaan u saxayaa, halkan sidee ayaan wax uga baran karaa. Nafta in si dhab oo run ah loola hadlo ayay mararka qaar mudan tahay halkii nafta lagu eedeyn lahaa khaladaad horey u dhacay. Qofka cibro qaata wuxuu awood u yeeshaa inuu naftiisa run u sheego, wuxuu aqoonsadaa khaladaadkii uu isaga sababay, go'aamadii degdeg ahaa ee dhibta keenay ee isaga uu qaaday, fursadihii uu dayacay. Tani waxay u baahan tahay geesinimo, waayo runta nafta lagula hadlaa mararka qaar way xanuun badan tahay, balse waa xanuun bogsiin kara nafta. Haddaba qofka aan isxukumin wuxuu mar walba eedeeyaa duruufaha dadka ama nasiibka. Wuxuu ku celceliyaa khaladaadkii hore. Wuxuu ku noolaanayaa wareeg aan dhammaad lahayn. Halka qofka isxukuma wuxuu qaataa mas'uuliyadda noloshiisa. Wuxuu noqdaa qof bislaaday. Wuxuu yeelanayaa xasilooni maskaxeed. Waayo aragnimada oo noqoto muraayad. Waxyaabihii kugu dhacay waa muraayad kuu muujinaysa adiga dhab ahaan qofka aad tahay. Mararka qaar waxay ku tusin kartaa tabardarradaada, meelaha aad u baahan tahay in aad horumar ka samaysid, awoodahaaga qarsoon ee aad leedahay adigoon ogeyn. Qofka isla xisaabtama ama wuxuu inta badan waayo aragnimada uga faa'iidaystaa sidii qalab isdhis ah halkii uu isagu u arki lahaa ciqaab. Isla xisaabtanku ma dhammaado waxa uu horseedaa qofka go'aan cusub, dabeecad la bedelo, jid ka duwan kii hore. Qofka maanta isxukuma berri ma qoomameynayo. Qofka maanta ishagaajiya berri waa uu nasanayaa. Diintu waxay si weyn u dhiirigelinaysaa isla xisaabtanka. Mar walba qofka naftiisa la xisaabtama wuxuu ka dhowrsanaanayaa gef iyo xadgudub. Wuxuu xoojinayaa xiriirka Eebbe. Wuxuu inta badan helayaa qalbi degan iyo xasilooni. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan maanta aan ku eegaynay ku cibro qaadashada. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe inoo saar channelkan. Haddii ay tahay markaaga koobaad ee aad nagu soo biirtay, ha inaga dheeraan ee la soco muuqaalada halkan aan kusoo gudbino si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaaladayada. Gambaleelka furo, like inoo saar muuqaalkan. Mahadsanid.